aqoon-yahan Maxamed Yuusuf Xirsi oo ka mid ah qurba joogta reer Somaliland waqtiganna ku sugan magaalada Hargeysa ayaa waraysi uu siiyay telefishinka caalamiga ee Cable waxa uu ku xog warramay cilmiga Baarashuudka lagu duulo oo uu taariikhdu markii ahayd 1968 ka bartay wadanka Faransiiska iyo dhacdooyinkii ka soo maray ama uu goobjooga ka ahaa muuqaaladan idin muuqda waa qaar ka mid ah duulimaadyadii uu ku sameeyay Baarashuudka waxaana uu gacanta ku sitaa astaanta calanka Somaliland waxa uu sidoo kale sheegay Maxamed Yuusuf Xirsi inuu muddo badan ku shaqeynayay cilmigaasi isagoo bare u ahaa ciidamada dalaayadaha ku duulay ee Djibouti waqti hore oo uu ku sugnaa wadankaasi isla markaasina uu tababarasiin jiray waana kan isagoo arrimahaasi ka warramaya horta Baarashuudku waa wax laba sidood loo isticmaalo isboor ahaanna waa loo isticmaalaa ciidan ahaanna waa loo isticmaalaa ciidan ahaan de waa gaadiid oo kale oo amba gurmad baa lagu galaayo ciidan haday dhulka meesha ciidanka la geeniyo wadooyinka halis yihiin meesha ayuu ku boodaa waa gurmad amba waa nin cusub meesha ku soo degay amba ciidamadu waxay u baahan yihiin Baarashuud loogu daadiyaa haday tahay shidaal haday tahay cunto haday tahay rasaas haday hub tahay kulaalka qaarkood waxa loogu daadiyaa cagafiya ay miinada iskaga baadhaan tartana badan baa lagu galaa caalamiga international amba national wadamada qaarkood 1968 aanoo inay yarabay ugu dhalatay waxay igu kalifeen inaan diyaarad fuula ayaan u galay meesha kolka hore dabeedna kolkii aan soo booday aan bartayna waan jeclaaday inaan sii wado ilaa halka uu ku dhamaadaan ka gaadhay kolkii ugu horeysay aan soo booday waxay ahayd bishii labaad 9keedii maalin subax axada 1968 dad dhintay waan u taagnay kuwa jajabay iyo imika halkan kaga sheegay laakiin aniga dhibaatada igu weyn waxay ahayd kun meelna kama jamin waxay ahayd laba goor ayuu Baarashuudka caadigii iga xumaaday oo aan tuuray oo aan ku soo degay kii badbaadada kolkaana waxaan joogay wadanka boqortooyada Morocco ayaan joogay waxay waqti aan meel fog ka gaaray Baarashuudka kolka hore qofka dalaada waxa uu fura diyaaradda xaliga ugu xidhan oo qofku diyaaradda kama goo ilaa inta uu Baarashuudka ka soo baxayo meesha uu ku xidhan yahay kolkaas uu ka go'ay ay buuxsantaa ciidamada Djibouti ku soo wareegay Djibouti calanka qaadatay dabadeedna kolkii Djibouti ay doontay in ciidamada dalaada ku buuda la sameeyo maadaama aan ahaa qofka ugu aqoonta badan leh Baarashuudka waxa noqday macallinkii ugu horeeyay Baarashuudka ee ciidamada Djibouti waxa kale oo 3 goor ku noqday iskuulka qalabka hawada oo Faransiiska ku yaala la yiraahdo certificate technique shahada technical oo koobaad labaad iyo saraakiisha waxa kale oo wax ku soo bartay saldhigga ciidamada cirka boqortooyada Morocco ku yaala magaalada caasimadda u dhow kolka waxay ahayd shaqadeedu macallin Baarashuudna waan ahaa macallin military waan hayo iskuulka military iyo hol ku yaala iskuulka guuleed kaana macallin baan ka ahaa kolka labadaba waan isku waday ma ku rajo weyntahay inaad mar dambe aad dib u bilowdo barista cilmigan Baarashuudka aad hore u barato qoontii waan u gudbin karaa haday tahay sportka oo taysboorka qudisa waxaan ka gaaray shahaadada ugu sareysa ee Barashuud Federal afka Faransiiska talixaad ciidamadana de labadii dhinacba macallinimada iyo qalabka waan sameeyay way ii suura galaysaa ilaa imaka inaan de macallin noqdo on dadka uga faa'iideeyo aqoonta Saciid Aadan Jaamac Cable TV Hargeysa